بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ودروسنا وحبرشada ayaan halka kasii wadno waxaan hore u soo dhignay qaybtii higaada qaybtii carabiga qaybtii tweetka qayb kale xirfadaha waxa ayay ku jirta meesha waxaan maanta bilaabaynaa barnaamij aad u xiiso badan oo dad badan soo codsadeen waa tacliinta af Soomaaliga iyo far Soomaalida af marka loo jeedo waxa weeyaan waa luqadii اللغة fartuna waa qoraalkii marka af waa luqa اللغة لغوي ama language haddaynu nahno farna fartuna waxay noqonaysaa qoraalkii la qorayay afkuna waa afkii lagu hadlayay inkastoo af Soomaaliga iyo far Soomaaliga aan cidina dadku aanay kala saarin laakiin haddii la yiraahdo fartu waa qoraalkii marka far Soomaali marka la leeyahay waa qoraalka Soomaaliga far waa font ama al-khat carabiga marka al-khat qoraalkii la qorayay wixii la qorayay afna waa luqadii lagu hadlayay waay maxay markaa labada ku kala duwan far waxa weeye qoraalkii afna waa ku hadalkii inkastoo af Soomaaliga marka dugsiyeena la isticmaalayo qoraal iyo wax walba af Soomaali iska yiraahdo oo luqadii af Soomaaliga ahayd qoraalkeedii waxay isku hoos jiraan marka insha Allah ta'ala waxaan soo deyn doonaa dhowr daris ilaa 4-5 meelahaas oo aad u muhiim ah qofku hadduu barto hadhowtu af Soomaaliga uu qori karayo iska akhri karayo buugna uu iska qaadanaya hadhowtu buugta Soomaaliga uu si akhriyo sheekooyinka kuwa kale suugaanta waxaas isaga ballarsanaya laakiin inta ugu muhiimsan kama kacdada xuruuftii isay isugu xidhmayaan sida loo kiciyo qoraaladoodii waxaas baynu soo gudbin doonaa insha Allah ta'ala waxa kale iyadana muhiim ah oo farta iyo qoraalada ka muhiimsan luqadii Soomaaliga in lagu hadlo oo arinta meesha baanu barnaamijka u furaya oo dad badan baa caruurahooda Soomaaliga garanay gaar ahaan kuwa qurba marka afka Soomaaliguna wuxuu kugu xidhayaa dhaqankii iyo dadkii iyo qofka identity-giisi huweedii qofka cidda uu yahay qof walba afka uu ku hadlo iyo bulshada ku xidhmaya dhaqankeedii iyo waxeedii kaasi marka waxa weeyaan dee waa ku daayay marka af Soomaaliga caruurtii la baro intaan qoraalba la barin ayaa loo baahan yahay oo lagu hadlo oo meel dad ku hadlaya joogan la geeyo ayaa aad u muhiim ah waxa kaloo muhiim ah iyadoo diintii la baro oo iyaguna qofka yarintan iskuul balageyn meel balageyn waxa weeyaan maalinba kelmad baa loo sheegaa marka hore aqeedada Allah subhanahu wa ta'ala wala bara inuu khaaliq inuu yahay sifaadkiisa la bara rususha la bara waxa soo dhan baa or lagu bara shafawi tarbiyadii baa la bara korimaysi baa la bara waxa la bara sidoo isaga difaaci lahaa ma challengeska self defense Soomaalidu aad ma barto dadku inta talaabada qofku qaadaa wixii la kulmi karayo sidoo soo galan karo iyo waxaa saaciirta la baraa sidoo isu difaaci karo sidoo xigta ya dulqaadka sabirka waxaa soo dhawaan qofka bartaa haddii kale waxa weeyaan dee waxa weeyaan waa neef lagu sii daayay badal la dhigay biyo la dhigay aan dabaal qoon intaas baa markaa muhiim marka af Soomaaligaas qofka marka la baro wuxuu ka caawinayaa af Soomaaliga waa af Carabi ah Soomaaliga waxa ay leeyihiin af Soomaaliga halkan uu galaa kushutu galaa balakajini waxaan luqadahan ay yiraahdaan kushutigi samatigi waxa soo waa luqada Carabi ah way kelmadooda marka taaweegto 70% baa ah ayaa Carabi galay Carabi daliir jabiyeen way qofka Carabi yaqaan oo arkaya in qofka afka Carabi yahay afafka yar oo dhowr baa ku jira oo iyaguna meel kale ka yimid hindi baa xataa laga helaa hindi ari iyo gaari iyo hada aragto roodi iyo waxa bara saabiyo waxaas waa hindi لكن أفكار لغة ديسو وأف عربي
وانا عربي سنه وحويان سوماليدنا de luqada qurax ku qori jireen barigi hore afka carabiga weey markii af Soomaaliga la qoriyaan waa isku qosay muddo dheer baa la isku haystay qoliyahay gumaystayaashu waxay ku dadaaleen in afka la aflaatiin lagu qoro dhowr iyo 10 luqada Soomaalidu lahayd waa la soo taagay Soomaalida waxay diideen laatiin lagu qoro aakhirkii dambe kacaankii markuu waddanka inqilaabay isaga xoog ku socotiyo laatiinkii kharash badan waa lagu bixiyay Yunus iyo waxa ku bixisay laatiinki waa lagu qoray marka taariikhda afka Soomaaliga oo dhammaan wax ku qoray Carabi dukaamada lagu xisaaban jiray wadaalada iyo maqaaxiyaha waxa dalbada hataa inamada dalbanaya shaaha markay dalbanayaan iyo markay raashinada dalbanaya waxa ku dalban jiray miyiga alaabooyinka alaabtii wuxuu waxa soo dhimo wada Carabi marka aad u baxday alaabtooda iyo wuxuu eegtay marka waxweeyaan luqadda marka Soomaaliga ayaan wada doonaa insha Allah taala taana hal lagu dadaalo kale ee qofka inta af Soomaali ba intaan wax qoraalka ka hor in af Soomaaliga la baro oo diintii la baro oo wax walba la baro oo duruufihii kale iyo waxa la baro oo sida ay sameeyaan noloshoodii waxa soo la baro marka intaas baynu ku horraac uga dhigi doonaa ku soo gabagabeynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh barnaamijka dambe la socda duruus dambe halka Play Store kana gala channel-kan markaad gashaan آدم بقى ورا channel آدم ولا بالآ آدم Islamic channel Islamic channel halka waxa laga helay higaada quraanka laga helay ku jirta حتى oo qofku muddo yar oo kooban 10 darsi baa ku jira 10 darsi حتى macallimiin badan baa imka isticmaala 10 darsi oo fudud weeyaan qof waliba halkaas u dhag markiiba self study waxa ku baran karaa marka halka markaas si gasaan playlist ka gala playlist waxaad ka helaysaa duruusta carabiga ahayd tii Soomaaliga ahayd tii maxay ahaatay higaada ahayd iyagoo isku xigay waliba playlist markaad ku sii dhufatid way soo ka xigay hadii kale waxba ka dhex galgalaya marba marka waxa weeyaan subscribe-na si duruusta kale ku soo socotaa ku soo gasho dadka kale u sii share gareeya oo qof walba waxa weeyaan adala al khayr ka faacili baa la yiri dadka kale wada gaarsiiya waxaad kala samaysaan bugaag PDF ku jirta meesha qofkii u baahan emailada halka hoose ku qoran videoga hoostiisa ama telefoonada ku qoran WhatsApp-ka iyo waxa kuwa nagala soo xiriira bilaash baan ku soo dirnaa insha Allah taala wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh